kadib waan ka baxay sidaas iga sheekadeenan maanta waxay leedahay muharibka waxtaariibiya kuwa loo sheegay shaqada durdurka ay taala jilib jubbada dhexe dhunsanayaal gobolada waqooyi ka soo hayaamay iyo dhiifoonayaasha geesiyaasha ah ee hari habeenka u taagan fashilinta qorshayaasha cadowga xogta iyo xuraanka dheereeya ee nisa baaritaanka adag ee booliiska iyo baacsiga howdka ee xoogga dalka ayaana u jeesay argagixisada ka shaqaynta ficlan nafalcaariya oo safris iyo tahriibin isugu jira eedeysanaha koowaad cabduqaadir cali cabdulle xirsi dheereeye 75 jirkan ku dhashay baadiyaha gobolka mudug degana deegaanka ceelasha biyaha xaafadda jabadgeelle ayaa ka mid ahaa geesiyaashii hore ee militariga dalka isagoona la diiwaan geliyay 1977 kaalintiisa ayaana ahayd carbiska ciidamada hadda xafiiska dadka safarka gawaarida laga saaro uga furnaa magaalada muqdisho ayaa shacabka geen jiray xeryaha qaxootiga sida ifo dhadhaab xagar dheer iyo kaakumo dheereeye xiriir telefoon uu ka helay qawaarij qadar bootaan kana soo hadlaya jilib ayaa lagu faray inuu soo tahriibiyo eedeysanaha labaad iyo saddexaad waxaana lagala ballamay inuu dejiyo hotel ku yaalo muqdisho isla markaana lagu xiro xafiis gaadiidka Kismaayo laba boosna raggan looga sii qabto markaas khamiis ku soo waca aniga khamiis bi soo wacaya habeenkaas khamiis shamca soo galay waa shamci habeenkaas iyo habeen ku xigo inta sidii gaara inta joogayna saxaaya ma garan karo in xaafadda ma garanay dawbeenow aniga xagee joogan kaliya waxa iga qosaysa markuu ii sheego xagee bay joogan xamar bay joogan ceelashay joogan afgooyay joogan afgooy haday joogan xafiis baa noogu yeelo waa u sheegaa taarigana waxaan yiraahdaa bakaarood saga markaa dhanka xagga jooga wuxuu yiraahdaa kursi u soo baneeyo hadduu aniga ceelashay la joogana waxaan yiraahdaa intaas oo qof baa ila joogtay kuraas u soo baneeyo haddii xamar joogaana taariga xamar laga soo saaraa xafiiska xamar baan soo gudbiyaa aad markuu ku soo wacay markii inta joogtaa waxaan joogaa xafiiska ceelasha biyaha lacagtooda markuu qaat maya lacag ba sabti baa la gaaraya lacagta waa sabti marka midkaan qoray inuu siinayo isagu inuu soo diray aniga ma aqaan laakiin lama gaar xilligeedii marka sababta lagu soo xiray maxay tahay wuxuu igu yiri waxaan u rabaa labada qof waxaan u rabaa magaalada Kismaayo adiga sababta marka lagu soo xiray lagu sheegay maxay tahay waxa sameeyay la igu yiri nimankii aad gaariga u qortay oo ay rabtay inaad qaado shabaab bay ahaayeen arrintaasina arrintii anigu aan proof garan kara ma sababta waxa weeye qofku markuu yimaado adigu hadda racd ka shaqada ay timaado gaari faaruq ay tago ku saaraya qofka waxa kaliya iga qoseeyo meel heblaan xagee rabtaa meel hebla lacagtu waa intaas eedeysanaha labaad cabdirashiid cismaan xuseen cumar ildab waxa uu ku dhashay kuna barbaaray tuulada hayeetiya degmada berbera waxa uu ka mid ahaa shaqaalaha xoogsatada ee dekada berbera shaqa la'aan soo foor saartay in muddo ah waayuhuna ay aad u kulaaleen sida uu sheegay ayaa u soo baxday inuu xiriir la sameeyo qadar bootaan oo ay isku dheer yihiin kaasoo jooga jilib jubbada dhexe waxaana loo sheegay shaqo aan loo cayimin nooca ay tahay uuna u soo safro jilib waxaan horta ka soo bilownaa anagu marka hore berberaan joognay berbera markaan joognay bilaa shaqo inuu noqotay had iyo goor qofka xaggan yimaada ama askari ha qorto ama shaqo kale ha helo waxa la noo sheegay qof xaggii uu joogay ka reystay ومادام يسبدل وناكسنو نلوشة كم هلاي ما فهمتي سيدا درتيد كالقعايل أنو حقا نقمنو أنسلاني شقدينا ويحبي كرونان إسا أيان خضر كل صوح حريرني خضرنا سفر بلود كهر لا صدح بلود كهر بان وقيمين وحقا سوقفتي هاركو أنو باني خضر ساسان كل صوح حريرني خضر وحو دهاينيو وانو ميل رونان شوغا وان شقيا دكامان كشقيا رقان لا شقيو ودد وناكسن بو دهاي ورنو أنا قصاصاً هايبان ولي بلا عمل بان قني شغل نو سوريادي وحده هاي شغل وايدي سوريادي نيجي يقول سبع هذا بدو إلا صدق أسبوع عويقات لا أفر أسبوع يقول شغلي مركونو صهلي وحده هاي شغلي وايدين هياي مصابيح كرتان وصابيح كرنا بان ولي ديار بان sidii baanu ku soo baxnay dadka aad noo geynaysaa maxay yihiin shaqada ila aad ugu melihido shalay baad qabatay yaa loo shaqeynaya wardadaan u shaqeeyo ragaan saaxiibanaho u shaqeyno ragay saaxiib yihiin waayo iyaguna meherada haysta marka ragga dadka waqooyi ka yimaado waxa loo jecel yahay inay shaqada u firfircoon yihiin sida dartii baan idin soo wacay hadda ay ma kareysaan kaalaya noolkiin iyo sahaydiin iyo wixii la soo dibara sidii baan anagu soo dabirnay maadaama ay magaaladii inagu bilaa camal noqotay oo muddo aanan shaqayn oo adigu lacagahan soo baxnay dad baan ku soo maahan sidii baan ku soo baxnay geelka cayay markaan u marayna waxaan urniyo cidii baan la hadlaynaa noolkii iyo sahaydii baan naga goday laba habeen naga suga waxa yarantiina gaariga uga hareysan soo lacag ma aha anaga lacagta idin soo tuuranay hadhow markaa shaqaysaan bal idin ka tirayaa balanaga
shaqo lacag gaarigiisiiba lacagtiisa haydii iyo noolkii la noogu soo diray waa soo raacnay ninkan jeesta la yiraahdo albeerkadan habeenkiis la seexanay subaxii markaan gaariga wada koraynay ayuu dhahay xalay marka albeerkada timaadeen baa idin arkayay imakana waa ninka gaariga wada raacnay ninkii sidii baan anagu walaalay ilaahay oo rafiiq ku soo noqon xamar markaanu nimi intaanu dhexda soo soconay waa la soo wacayay xagga mareysaan sidii dad nadiif oo dad shaqo nadiif ah noo wada sidii markii hore ayaa nolol dhaqmay markaanu nimi xamar waxaanu nimi magaalada waa soo galay haddii alla ka dhigayo waa nabad qabnaa waayahay buu yidhi ninka bibaa idinla soo hadlayay maanta iska nasta haddii alla ka dhigayo way soo imanaynaa hoteelkaasaa tegaysaan ninka hoteelkaa idin soo wacay annagu cid kale lambar kamaanaan hayn oo cid kale maanaan wacana ninkii hoteelku isagaana soo wacay jimcay ahayd gaarigii markaanu ka degnay jeesto gaariga markuu ka degay dhinacuu dhaqaaqay maanaan arkay jimcay ahayd salaadii jimcaha marka laga soo baxay hoteelkii aanu tagnay aanu qubaysanay waxaanu nidhi warniyow ninku meeshan wuu leeyahay aanu warto waxay iska hubinno toy haddii alla ka dhigayo aynu yaro nasanno markaa sidaasaanu jaad ku doonanay markaanu qubaysanay dibadda u baxnay baanu aragnay ninkii jeestoo halka kaasheerka ee maqalka hundheelka taagan waa ninaan soo saaxiibnay oo gaadhayga ku kulanno oo sheeko fahanay oo soo sheekaysanno war hebel salaamu calaykum baanu si keliisii soo nidhi war xaggana waynu isugu nibee waynu wada joognaa buu dhahay marka sidaasaanu hoteelka isugu nimi jaad baan soo gadanay nimanka dhar caddaay nooma yeedhin oo nama odhan shaarka kor u qaaday annagaa cagaha iyaga ugu tagno uga hadaabaano annagu aanaan wax shakiyanahayn sidii waxaan u dhaqmaynaa waqooyiga ee meheradaha lagu qayli jiray warniyo rag dhafarsan baanu nahay baan noo gaadhay ka digay meheradan walal yar fadhiisanno oo shaah ka cabno noo tilmaama si bili aadilibaan war shaarka kor u qaada baa la dhahay niyo waxaa la isma tilmaamay meeshan xamar baa la dhahaay ما أننا كرهسنا شارك هو كروق عضني والله نوريستي حاجة كتماتين حاجة وسعتين هوشي ألقى سيك الشيء أنت نوسعني هتيل كنا نسود جنيه وكم هتيل كنوم وقضاء مركها سواسان كسرنا هتيلك يعني كبي هتيل كان نيك هتيل كسجان صوعي كان هتيل مركا نيكو مقالة سواء نسوق جليني نيكي بترول اللي هاي اللي شقيني أيام ضحاي أيام نري yaanu la xidhiidhnaa wuxuu ninka hoteelkan ku xiraya ninka idin la soo hadlaya ayaa hotel idin geynay waxa idin dhahayo ninkii aan u soconay badrooliga qadar bootan markaas uu nama dhahayo moogti waxa way shaqaynaysaa ee lacagta noo soo tuuray ayaa idin dhahay marka sooxadan ma joogtaan ha ninka idin la soo hadlaya meel chief idin geynay la xidhiidha way isaga idin la soo xidhiidhaya annagu ninkii maana wacanay isagaan soo wacay telefoonkiisa aanu wacaynay nin hoteelka haystaan ugu nimi oo isagu maqalkii fadhiyaba wuxuu qolada leedii soo diray ma idinka ahaa baan dhahnay wuxuu soo dhawaado hoteelkii uu dejiyay saasaanu hoteelku ku degnay ma fahant hoteelka meeqaa miyaa seextaan ma baanaan seexan ba markaanu isnidhiniyo yarana soo taa doonta baaro 8 saac ay noqotay ee aanu saacii ka soo noqonay 9 saac ba salaadii casar oo leedaam iyo wala noqotay ma fahant marka nimankii si fiican bay noola hadleen si ma fahanteen qadar sheekadiisa marka يا قدر شيكدا قدر قرمي فهمتين قدر شيكدي سوحان وان كو سو ودا waxaan fahanay markii dhar cad ah markayna qabteen ee ay naadeen waa la idin baaraya waa la idin ka shaki baxaya waxa dhacday way hayban nari laba nin oo lambaradooda hayni waa naga xirmeen oo askara marka waxaan wacanay ninkii aan u soconay petroliga haa warcid kale intuu garaacayno ninkii inuu soconay u shaqeynayni inoo wacbaan nari ninkii markaan wacnay waxaan ku noo ciidan dhar cadaan qabatay magaaladiina ma kala garanayno waxaad yeelaysaa ciidankan horta la hadal hoteelka hortiisa baa laana nagu haystaa wuxuu dhahay warniyo maadaama hotel aan ciidan idin qabtay anigu shaqaydu ku meelihi magaaladiina iska fardaamiya waxa dhahayo ninkii badrooliga noo haa lacagta noo soo diriyo saana dhig oo idinku soo xiray ninkaas idin ku xiray ninka hoteelka nagu xiray asiga naftigiisa badrooliga qadar baan ku xiray ha badrooliga qadar baan ku xiray ha waa kan lacagta loo diray ninka badrooliga ee loo shaqeynaya waa ku fahmay marka annagu nimankii waqti bayna siiyeen chance ba haysataan bay dhaheen waan annaga iyagu xisbiidina waxaan ku warninka inta ayna soo waday
ee aynu mastaafada dheer u soo galnay ee maanta ciidanka dhar caday naga furi waayay muxuu noola soo socdaa male war ninkan niyow cid xamar joogta qadar markaa lambarkiisu waa xiran yahay isagu oo subaxnimadkii markaan magaalada soo galaynay baan ugu dambeysay oo qadarna waa naga xirmay masaa laakiin isagu markaa ma naadilsan moogti laakiin markuu ninkan markuu niiri warka ayaan anagu suuraysanay waxaan ku noo ciideena cid nooga wax jaamac ismaaciil iile ninka la dhaho Hargeysa lambarkiisa la naga soo sheegay inuu ciidanka yahay waan moogin waa nin adeer noogu aadan waxaan niriniyo xamar baan joognaa ciidiyaan u soconay waraanaan ka sugeyn bayna tiri awal adiga kulamaana soo xiriirin hadda iyo mankana waxaan u baahanahay ciidan dhar caday inaad naga furto waayahay ninkii wuxuu yiri xagaa joogtaan cabaar buu mooday inaan ku ciyaarayno waan ku celinay wuxuu yiri xagaa joogtaan waxaan ku noo baar ubax ciidanka igu dhiibay wuu yiri ID kaarkaygan soo dirayaa mooto soo raaca ii kaalaya ciidankii ninkii sidii uu naga fujiyay cagaha yagaan ugu tagnay jaamac waxaan ku niriniyo ciidiyaan u soconay ee caynka ahay ninka qadar bootaan la meel jiro ma taqaanaa ma aqaan buu dhahay anagu soo shaqaystaan ugu in shaqana waa idin hayaa buu yiri wadankan ku annimna bilaa amal baan noqotay anagu rag saaxiib ciyaalanahay oo qofkii haddaan soo shaqayn de ciyaalkii cidimo masruufis marka adigu amar xaasil wuxuu dhahay inuu ninkaas meel ku aadan yahay ma taqaano maxay marka idin u baahantii waxaan ku niyo waan shakinay ninkii aan u soconay batrooniga qadar nagu soo xiray anagu qadar warkiisa dhinacna waan kaga kalsoonayn dhinaca markuu aan shaqada noo sheegayna cidii loo shaqeeyo nagu xiray Soomaa marka wuxuu dhahay shaqadaasaan idin hayaa qadar waa naga xirtay ninkii aan u soconay wuxuu anagu idin ma furanayo ciidankan idin ka dambeeyaan ma ay taasaan shakigaasaan kugu soo garaacnay iyo meel aan tiirsano intaan wax kala hubsanayno nagee magaalada cid ka garan maynay wuxuu dhahay niyo anaga saqda dhaxa ciidan gaari lay saara bilba guuto dhanbaan haayo intaas oo tiro yaro kooban kaga noolahay marka waxa yeelaysaan xirad dawladeed ma geyn karo intayna wax kala hubinayno hoteelkiini ku laab war sidee baan u dhacaysaa baan ku niriniyo anagu macal hoteelkii hadda markaad naga fufuraysay dhar cadda baqdin aanu ka qabno alaabteedii kama aan soo qaado niriniyo balay ma jirtay habeena kala hubinayna telefoonkaygana markasta way idin furaanaya ilaa berito ilaa caawo way soo wici kartaan hoteelkiina idin ku mahadsan ku laabta waqti aan yar baasha Allah adigu marka salaadkii ma ka galgaliyaa salaadii xasan markii laga baxayna waa u tagnay Ismaaciil marka ninkii wuxuu mootada raaca mootadii baan soo raacnay dhexda markaan soo socono ayuuna soo wacay naga baqdin baan haysan waxaan soo warninkii Ilaahay imkaan xariisidii galiyay ku laab waa ku laabanay walaabadkii mootadii wuxuu noo raacay imanka intan ilaa iyo maxkamadda kadinka horteeda waliba ka soo yar sakaysa ayuu mootadii nala yara raacay markuu nala yara raacay gaarigii markuu ka digay ee waxa dambe ka wareegay ciidan baan ugu soo wareegay soo dega oo shaarka kor u qaada markaan shaarka kor u qaadanaan soo degnay cabaar baalkii la nagu hayay xagaa u socoteen runta sheega ruuxan u soconay male aan ugu taasaan u soconay oo shaqataga ninka naadir buu noo yahay isagaana noo nimo ku niri meel nagii cidii aan u soconayna waa ka shakinay ninkan saasaan ugu nimi iminkana igu soo noqdo buu dhahay hoteelka ku soo degteen iyo cidda idin ku soo xirtay loo geeya sidii baan hoteelkii ku nimi hoteelkii markaan nimi hoteelkii aaway baa la dhahay waa kan raggan ma garanaysaa baa la dhahay raggan ma garanaysaa baa la dhahay ninkii hoteelka wuxuu dhahay maanta ay yimaadeen yaa la socday baa la dhahay wuxuu yiri nin baa la socday ninkii chiefku hoteelku chiifa waa jeesta moogti marka Jamaal baa la degay alaabtii uu soo qaaday ninkii anoo indhaha ka xidhan oo gaariga la saaran ayaa lagu dhahay ragga ninkii ku keena laga rabo waa ku fahmay adii maxaa qabajid markaa joogtay anu dekada burburaan ka shaqayn jiray waxaan ahaa nimanka faraacda la dhaho geela hoos daga raashinka rara baabuurka xamaalka maxaa la yiraahdaa faraacad baa la dhahaa laakiin xamaal baa waa kon baabuurka rara maartay baabuurkan daabulka qaadaya ayaan ka shaqayn jiray oo nin xamaashaban ahaa khadar maxaa ku taqaanaa markaa ku xaq khadar Hargeysa waxaan ku aqaanay anigu sugo nin duuma kaamalaya oo rag ganacsataa u shaqeeya oo hanti loo dhigto oo la aamino oo intaas oo dukaamo ka shaqeeya oo qaarkood mas'uulka eedeysna saddexaad Jamaal Cabdi Aadan Warsame oo isna ku dhashay kuna barbaaray tuulada Hayeeti ee degmada Berbera bilowgiisii ayuu ku soo baxay qoysaar xoolaha raaca dekada Berbera ka soo shaqeeyay ilaa ay markii dambe uu ku biiray 2019
militariga ciidanka Somaliland waxaana uu tababar uu ku soo qaatay tuulada Badarwanaag ee gobolka Togdheer isagoona ka soo shaqeeyay taliska guud iyo fadhiga ciidan ee og horaantii sanadkan 2024 ayuu ka tagay ciidanka sababo uu ku sheegay xuquuq la'aan iyo fasax la'aan waxaana uu dib u noqday shaqada dekada Berbera anagu markaan soo bixi doono anagu marka hore ku soo socono xabar inaan soo qabto aan soo bixi doono ayuu maalin habeenada kamid ah soo wacay deetana markuu soo wacay waxaan inaa xambar baan imadaynaa deetana wuxuu yiri waa caadi kale marka waxaan moodayay nin ka tirsan siga quradiisa ciidamada oo xamar joogan moodayay xamar markaan soo galayna shaki baan la galay ninkii markuu noo diyaariyay gaari meel u baxaya kale waxaan niyo aqal gal ma iska xabeel leenahay ninkan meel kale noo wadaaye Cabdirashiid oo aynu dadkeeni ay wacano debatana wuxuu yiri arrinkan aynu ka fadhiisano inamar magaalada ku noqonay udaalku waan ka soo noqonay qaad baan meel ka soo qaadanay qaadkii marka ka soo noqonay aan ka soo qaadanay ayaan niman askaraayo meel fadhiya oo dhar cad iyo askar isku jirteen ayaan warwar noo sheegay meel aan yara fadhiisano nimankii baaskoolada inoo soo baxeero waxay dhahdeen istaaga nimankii meeshaan ka nimiyay si aan u soconay waan u waranay halka fadhiista cid wacda bay dhahdeen waxaan wacnay marka jaamac jaamac isaguna ka tirsan ciidanka debatana markaan jaamac aan wacnay waxa dhacday debatana wuxuu yiri jaamac waxaan ku nidhi halkaasaan joognaa xabar baan joognaa wuxuu yiri marka baan wax baan joognaa baan ku nidhi marka niman dhar cadaana wayna haystaan deena ama adigu noo tibaado ama ku nibaadno labada mid kala dooro deetana wuxuu nimanka dhar cadka igu dhiib nimanka dhar cadka naga damiitay markuu naga damiitay wuxuu yiri caawa isku ima doonaa magaalada iska jooga buu yiri halkii iska jooga war ma joogayna baa ku meesha ama adigu imkaan ku nimaadno ama imka si dhaqsiyan oo kaalay saas markay dhacday wuxuu yiri ii kaalaya waxaan ugu tagnay maxay ahayd meel maxay stop maxay ex-control baa deetar ugu tagnay jaamacadii kale haayeen meel naga shaaheeyaan fadhiisanay filikii baan u sheegnay ninkaasna wuuna soo wacay baa ku nidhi hadda maga xamarna inaanu ka baxnaa anigu maanaa doonayna xamar inoo soo shaqo tagnaan doonaynay mee xaggana markaa ninkii markaan u sheegnay wuxuu yiri ninkaas niyow waddankan ma joogo wadda qadan baa ku socotaan waxaan ku haddaan ku soconaa adaan nin adeerkay walaalkayaaye gurina gey ku noqon maayno macal hudheelka iyo xotone haddii aad meeshii dib loogu celiyeyso iyo haddii aad gurina geeysaba dee adaan kooda joognaa imika nin adeerkayaaye meel la gey sidaa markaan aan ninkii ugu sheegnay wuxuu yiri ninkan nin ciidan aan ahay heerna melihi xero ciidan baa seexdaa meel ay geeye garamaayo dabeetana markaan wuxuu yiri horta hudheel soo meedaa degin haa hudheelkii isaga noqda waa asxan baan ku nidhi marka mar hadduu yiri iska taga dubal isaga noqonay waxaan go'aansanay inaan cid kale wacno mar hadduu ninkan yiri iska taga aan cid kale wacno aan meel la geysa dabeetana sidaa markaan go'aan ku gaadhay mootuna saaray mootadii ma raacnay markaan waxoogaa soconna tagnay ay dub noo soo wacay wuxuu yiri dub soo noqdo waxay igu timaadaan beerta jaadka lagu tagnay ninkii noo sii diyaariyay haddana askar iyo ciidan ayuu bari saddex taagnay waa nimankii waa kuwa igala wareegay buu yiri sidii baan shirci ku soo galnay markaa taliya saasay ku dhantahay ninka magaciisa soo wacay qaraabadii ninka ma la soo wacay waxaan idhaa khadar buu na idhaahdaa markaa waxaan haysanaa noolka intii hore ilaa maxay ahaydeen waanu haysanay lacag ma garanaysaa halka maxaan gaalkacay markaan maraynay ay lacagtii naga yaraatay marka horena wuxuu noo ballan qaaday isagu markaa mar aan ku nidhi macal qarashkan naga yar baan ku nidhi ma garanaysaa markaa nin anagu ciid anaan moodino dari lahaa walaalana aan u sheexaadaya ma garanaysaa kadib sidiiba markaa maraysaan anaa wax idiin soo tuuri dalaa haddii kale lacagta waa iga cunaysaan buu yidhi haddaad waddankii joogtaani soo baxa horta waa si xaalka markaanu niga gaalkacayo ayaa waxna ku nidhi aruucii aad nagu ballan qaaday noo soo tuur sidii baan dabeetana wuxuu noogu soo turay gaarigii aan soo raacnay magaradaasaa ayuu noo soo turay lacagtiisii sidii baa xamar ka soo gallo hudheelkii aan ku soo gallay hotelkeedu ku xiran marka hotelka wuxuu yiri ninka lacagta nin buu isagu gacan sheefkii nagu soo turin moolkiisa nagu soo tuurin nin baa idin soo tuuriyay buu gaar lacagta noolka ninkaas ay geeyay buu macal meel ninkaan la hadla isagu markaas aan ugu dameysay telefoonkiisa wixiisaba ninkii baa markii dambe markaan soo gallay xamar aan soo gallay xamar ma soo gasheen ha
markaasoo ku leeyahay xawar ma joognaayo baar wax baan joognaa si baar wax u dheelka meel magac la muxuu u dheel yaro xareed saw maro u dheelka taga u dheelkii markaan galay wax maalin jibcaa baan soo galay ninkii waxaan uga dhaldhasanay ilaa meel kale transit kan looga dhigayaba oo transit kale u si baxayna meel kale loo sii wadaba dabeetana markaasaan isqabanaa ku dhigay miyaa aqal gal maahe cabdirashiid dubi noo celi aynu cid wacano dadkeena ay wacano aynu naalaniyo aynu dadkeena qaraabadiina kala daydayno khadar halkee ku aqaan jirtay muxuu qaban jiray khadar ciidamada dukaamada ka shaqeeya bakhaarada ka shaqeeya ayaan ku ogaa markuu xaggaa la joogay dukaanka ma asaga iska lahay muxuu ka shaqeeyay muxuu ka ma shaqaalu haa jiray shaqaalu haa jiray hadda aa khadar khadar meel aan meel joogay maan garada ilaa maxaa ninka odaga ayaa ku soo xidhay odaygan maan anagu ismaan odayga macal telefoonkiisa iyo magaciisa tolo meel maraya maan arag horta ninkan wuxuu malaana soo anu dama meeshu waxaan la soo hadlayay ninka kale magarada saaye uu lacagta noo soo tuuray ayaan la soo hadlayay ninkaas ma na aqoonayn ciidanimo waa soo maray ciidanimo yar baan ku jiro dhibo baan ku soo maray waana ka baxo muddo 2 sano bilaa camal baan ahaa ciidamadaas intaan lagu qoray kuliyada gashay maxaana baratay waxaan lagu qoray dugsiga Badar Wanaag baan ayaan ka baxay in yaroo kamid ah Hargeysa joogay kadib waan ka baxay oo sidaas iga tagay intee ma tababar ku qaadatay Badar Wanaag suu sheegay Badar Wanaag ma ku qaatay marka sida aweed waan ka baxay muddo 2 sano kuma jirin maanta hadii aan ciidan ahay ama askari ahay maan de bilaa camal ma noqdeen oo nin bilaa camal xamar soo qabta maan ahaadeen meeqa sana ku jirtay ciidanka muddo wax 2 sano aan gaari baad ku jireen meeqa ciidan aheedan ku dhahay meeqa ciidan aheed ilaa 2 sano aad u dhow maxaa kalifa inaad ka tagtay ciidanka marka maxaa u tagtay aduu si magarasay waxa isbixi waayay waxa heeday aduu kiraday noqotay hadii duruufteeda aduu isbixi weeday dabeetana aduu qaar saraakiil ay waxbaan isku dhacnay kadib waan ka tagay si la mid ah eedeysane Cabdirashiid Ildab ayaa xiriir kadib qawaarij qadar bootaan u ballan qaaday shaqo ku xiran inuu jilib yimaado $35 sahay safar ah oo ka timid raqabe qadar ayay ku soo mareen safar dhulka ah isaga iyo eedeysane Ildab markii ay xamar soo galeen waxa la wareegay eedeysane Cabdiqaadir Dheereey oo sanadii hotel isla markaana diyaarinaya safarkooda Jubbooyinka Maxamed Cabdiqani Ibrahim Cabdullaahi Jeesto oo ku dhashay degmada Buuhoodle ayaa isna ahaa macallin xisaabtii Ingiriiska ka dhigi jiray waxa uu istusiyay noloshiisa iyo xirfadda macallinimo inaysan isbixi karin waxaana uu go'aansaday inuu xamar yimaado eedeysanayaasha Cabdirashiid iyo Jamaal ayayna iska soo heleen gaalkacyo ilaa markii dambe ay wada yimaadaan Muqdisho ayna degaan hal hotel bisha waxa ii qorshaysnayd wax walba qadarta leh ku dhacaanay inaan imaado oo shaqooyin soo dheendaysto haddii meesha shaqo aan ka helo oo aqoontayda aan ku helana inaan waxa weeye halkayga joogo dad ehelana la xiriiro oo halkayga aan dego haddii shaqo xamar aan ka waayana inaan deegaankayga dib ugu noqdo maxaa baratay anigu jaamacadda waan ka baxay sanadka ardayda ka baxaysanahay qaybta BBA-da maamulka iyo maareynta ganacsiga kaya ka taqaanay isku soo raacay sax taliya marka hore Buuhoodle ka soo baxa Buuhoodle markaan ka soo baxay waxaan ka soo wareegay markaan soo wareegay xagga la yiraahdo gaalkacyaan soo mara gaalkacyo Leyl Calaawi baan ka soo raacay raggan ila socda labada nin ee dhalinyarada ila socda ayaan isku baran intee soo warateen waxa weeye gaarigii yani rafiiq baan noqonay dad yani gaarigan soo raacnay gaariga yani la socdeen anna gaarigan soo raacay waa isbaranay Jamaal Cabdirashiid halkee wada socotaan oo maxaa ku wada hadasheen dad wada socoteen ee isbarteen Soomaa maxaa ku wada hadasheen ragga waa iswareysanaa anigu waa u sheegay waxaan ku shaqaan xamar ka raadsanaya iyaguna waxay u leeyahay shaqaan xamar ka raadsanayna isku meel baan noqon shaqaan waxay raadsanaa bay gudahday intaas bay sheegeen wax kale bay sheegin baaraha galkan uga wakiilka ah sirdoonka qaranka ayaa macluumaadyo u badnaa natiijada baarista la wadaagay guddoonka maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada intaas kadib ku xigeenka xiraliyaha guud ee ciidamada Cabdicasiis Cusmaan ayaa maxkamadda ka codsaday inay ku kala xukunto 40 eedeysane ciqaabta u qalantay ku xusan qodobadii ay ku soo eedeeyeen Dheereey oo eedeysanaha koowaad ah qadar bootaan waa isagaanaan maxaa caddeehay asaga ka mas'uul oo lagu soo dullacay asaa nimankan dhan soo wado meel dejin u sameeyay asaa hotel ku xiray marka Dheereey nambarada u saf garaysanaa ka mid tahay fiiri mid gudoomiye warqadaas ay ku caddaa wax dhan waxaa meesha marka marqaatiga meesha aan keenay wuxuu cadeynayaa yaa ku soo xiray nimankan hotelka
بدرك يا كبحنا سؤال اللي ويديه كبيده وعير waxa ka bixinaya dheer aan ku horto aniga jidka la sheegayo Kismaayo waxa waaye Kismaayo waxa waaye meel dawladda joogto waaye waa baana furasha la yiraahdo beeshaas sheeganaya ma jirto jilbi u socday maxaa cadaayo isku wada way way ogiin nimankan mudan gudoomiye marka eedeysana dheer asaa meesha ugu khatar badan eedeysanaas saddex arin ayuu ku dhacay gabaadsin uu si muxuu sameeyay hotelka ayuu u gudbiyay shabaabkuna wala shaqeeyay qodobka lixaad faqadiis labaad sheegayo marka dheer waxaa maxkamadda ka codsanaya inay ku xukunto qodobada ku soo eedeynay Cabdirashiid shaqada uu xamar u soo aaday mudan gudoomiye waxa waaye leenta ummadda Soomaaliyeed way shaqo kale ma jirto Hargeyso iyo Berbera kalluun la dabar karaa waxa la geli karaa nacnac shaqo laga ma weyn saa aaminsanna shaqada marka oo jiribtaalo waa la yaqaan waxa ay tahay shaqadaas soo doonto Cabdirashiid eedeysana Jamaal wuxuu ka yimid Berbera wuxuu ku jiray ciidanka militariga Somaliland ma aha ciidanka booliis ma aha nabasugid waa military waa ciidanka militariga in lagu jiro oo Somaliland oo xamar u imaaday oo jilib ugu socda inuu meeshaasi jannada yar laga sheegayo ee beenta ah inuu aado isagoo jilib markoo tago la rabay in adana loo soo diro goboladiisa marka dib adan loogu diro laguna dhibaateeyo dadkaas gobolada waqooyi ee xasiloonida haysto marka qodobada ku soo eedeynay oo ka qayb qaadashada dagaalka ah inay maxkamadda ku xukunto ayaan ka codsaneynaa eedeysanaha afraad Maxamed Cabdiqani Ibrahim Maxamed waa macallin cidda u degan oo u socdo oo qaraabada la ah waa qawaarigta mabdooda ka dhacay Maxamed Cabdiqani oo eedeysanaha afraad marka taas waxay ku cadeynaysaa in ragga inay iswaceen gaalkacyo isku sugayay gaalkacyo markii la imaado la isku soo lagu darsaday xamar la imaaday kabacdina midkaana qaab gooni u macaamilay saddexdan labadan kalena qaab gooni u macaamileen labadan dheer ay soo dhaxmareen asagana qaab gooni hotel kula macaamilay gudoomiye marka qulqulka gobolada waqooyi xasiloonida ka jirto dadka ka soo tagaayo waa bateen aad u bateen waxaan ognahay meeshaan inta lagu maxkamadeeyay waxaan ognahay maalin kasto inta halkaas ay tagtal dhaw marka maxkamadda waxaan ka codsanaynaa inay go'aano culus ay ka soo saarto oo qodobada aan ku soo eedeynay ku tacalluqo si ay u joogsadaan dadka halkaas ka soo baxaayo ee gobolada xasiloon ka soo baxaayo ee soo doonanayo goboladan qawaarid ay joogto soo aadayo maxkamadda maasanta qareenada oo dhankooda maxkamadda u sheegay inaysan jirin ka tirsanaashiyo qawaaridta oo la cadeeyay ayaa codsaday in xiriiradooda la siiyo muwakkiliintooda waxa ayaan darro ah oo nasiib darro ah hay'adaha cadaaladoodu inay sida maanta noqoto ay noqoto aad baan uga xumahay nasiib darro aad baan uga xumahay dad abriye ah oo la qalday oo in la qalday ay u caddaatay inay ku hayaan xabsi muddo intaas leeg sababna u noqdaan inay maxkamadda dhegaysato laakiin ilaahay mahadis waxaa maxkamad cadaalad ah oo wixii meesha ka dhacay arkaysa kana go'aan gaaraysa inay maanta ay heleen baa horta ilaahay mahadis ah mudane gudoomiye iyo garsoorayaal noocan ma una cadaalad hadday jirto Cabdulqaadir Mire odayga u horeeyo oo la yiraahdo Cabdulqaadir Cali Cabdulle hadday noocan ma cadaalad jirto lama xireenba wala sii deyn lahaa laanahu sabab dembi ah oo lagu xiro oo ku mutaysa xabsi oo maanta maxkamadda horteeda la keenay ma jirto kaliya waxa la yiri dad buu hal daji shaqadii asaga u lahaa professionkiisa ahaa inuu dad raro waa shaqadiisa dadkaas inay shaab yihiin wajiga kaga dhigana shaab baan ahana may oran kuwa hadda shaabnimo ma baqirsan xataa hadday shaab yihiin xataa dembi kuma noqonayso laana umaysa sheegin wixii asagu cilmi uu ku leeyahay oo shaabnimo uu ku leeyahay cilmi uu ku leeyahay baa qofka dembi uu ku gali karaa laakiin wuxuu ogaalkiisa uga qof agency ah oo wax rara dad oo dhan buu raraya dawlad buu raraya mucaarad buu raraya cid kasta raraya qofkii asagu markaa uu ku ogaado inay shaab yihiin hadduu u bareero oo gacan siiyo markaasaa la oran karaa wax buu gacan siiyey Cabdirashiid Cismaan iyo Xuseen Xasan iyo ninka la yiraahdo Jamaal Cabdi Cali waxay sheegteen duruufo deegaanka ka jira waana duruufo caam ah waa soo shaqo tageen waana yimaadeen dambina ma egeysa dambina ma dhicinba inuu dambi dhaca horta shardiya soo maaha dambiba ma dhicinba way yimaadeen waa joogeen hay'adihii amniga ay wax bideen baana xiray intaas cadaalad darro maxkamadda horteeda u joogaan waxa ku soo haray Maxamed Cabdiqani Ibrahim Maxamed Cabdiqani xaaslu ahaa macallin buu ahaa
iskuuliga hadda haweentiis waa jiranta isbitaalka hadda waxaa lagu qalayaa garoowe duruuf uu la soo tegey suu sheegayaa dhab ah xilliga uu yimid xilliga iskuullada la furo oo macallimiinta la qaato isku soo aadiyuu yimid sifadaasuu ku yimid inay nimankan isu soo raacaan iyo inay saqoodaan iyo inay telefoon qoraan dambi ma aha laana ayagu dambi kuma jirin xataa hadday dambiilayaal yihiin lama raacsin karo macallin buu ahaa shaqo doon buu ahaa xamar buu soo shaqo tegey xafiiska xeelaalintu iyo baarahaba ma cadaynin mas-uuliyadda ah waxay dhaheen maxamed cabdiqani habraaci saxda ahaayo maray halka jamaal iyo cabdirashiid aynan habraaci saxda marin maca daalika ma sheegin habraaca saxda wuxuu yahay waxaan maxkamadda sharafta le ka codsanaynaa anoo gabagabadeeda ku darsanaya maadaama muwakilkeenu uu si mas-uuliyaddii xeelaalintuna ay gabtay oo waxay ahayd intaynan maxkamadda u soo gudbin haddii qodob kastoo lagu eedeynayo tiirkiisu dhammaystirnaa waayo inay sii dayso wax eedeena samaynin maadaama ay soo gudbisay xafiiska xeelaalintu soo gudbiyey eed aan tiirkeedu dhammaystirnayn waxaan codsanaynaa in muwakilkeena xorriyaddiisa si deg deg loo siiyo muxuu ahaa lana fasaxo maadaama si aan sharci ahayn uu ku xiraya maxkamadda mahadsanta waxaan kusoo gabagabeynayaa nimankan eedeysanayaasha ee meesha ugu xiran si qalad ah gef ku dhacay maxkamadda inay fiiriso qodobka 122 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed isla markaasna xorriyadoodii ay siiso ehelada u degan inta oo madaxda ah iyo shaqaalaha ahna ay ku wareejiso ay shaqo u siiyaan maxkamadda waa mahadsantahay maxkamadda ka codsanaya maxkamadda waxaan ka codsanay xorriyadda la siiyo maxaa maxkamadda ka codsanaya maxkamadda waxaan ka codsanayaa mudane in maxkamaddu waxa weeye xorriyaddeydii ay dib ii siiso waa la gartay maxkamadda maxaa ka dalbanaya waxaan ka dalbanayaa maxkamadda sharafta leh maadaama aan ahay nin barashar leh sonkor leh kolestarool leh in badan